بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا شبكة sologroups.com ee laga barto cilmiga ICT-ga iyo English-ka oo ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Magacaygu Cabdinaan Ismaaciil. Waxaad nagala soo xiriiri kartaan emailkan info@sologroups.com waa English language ama luqadda Ingiriiska elementary. Elementary-ga طبعا dadka qaarkood ama ardayda qaarkood waxay u maleeyeen inay tahay basic. laakiin elementary waa meelaha ugu muhiimsan ee luqadda Ingiriiska laga qaato ama si wanaagsan looga barto. Marka waxaanu baran doonaa a grammar, a functions, a vocabulary iyo a dialogue. Horena waa u soo arnaa casharadii hore. Marka waxaan filayaa in kuwan waxyaabo aad u fara badan ay idinku soo kordhin doonaan. Casharada soo socda ku soo xigan waxaan ku samayn doonaa noocyo kala duwan oo u dhow kuwan grammarka, functionka, vocabulary-ga iyo dialogue ay yihiin. iminkan waxaa la doonayaa dictionaries ama qaamuusyo oo ku jira shabakadda sologroups.com in aad isticmaashaan si casharada ay idinku fududaadaan. sidii caadada ahayd waxaanu gelaynaa log aan leenahay log in aan ku leenahay shabakadda sologroups.com. haddii aadan member ka ahayn waxaa muhiima in aad member ka noqotid. login ayaan leeyahay, username-ka iyo password-ka ayaan ku qorayaa oo ku xaraysan meesha si aan u galo. enter ka bacdi waxaan soo galayaa shabakadii, waxaan ku garanayaa shabakadii inaan ku jiro, waxaan arkaa godkan ku qoran raadi wixii ku dhaafay. dhanka Englishka waxaa hoos yaala tutorial, video tutorial, downloads iyo articles. marka downloadska aad ayuu muhiim yahay. waxaa ku jira downloads aad u fara badan oo qaamuusyadii iminkaan ka hadalnay ah iyo casharo kala duwan oo PDF ah. marka waxaan tegayaa video tutorialka ayaan tegayaa ugu horeyn. waxaan soo aragnay beginners, pronunciation, English test waan iska soo qaadnay. iminka waxaanu sameynaa elementary-ga aad muhiim u ah. haddii si aan u riixo waxaan ku aragnaa elementary-ga inuu yahay a course a part 1 ama qaybta koowaad elementary-ga inuu yahay. marka waxaa muhiim ah wuxuu u baahan yahay in lagu duubo Java software oo aad raacdid cashar shabakada ku jira oo la yiraahdo Java software oo aan sameynay. waxaan u sameynay in casharkan ardayda ay u fududaato sida ay u isticmaalaan. haddii kale ma isticmaali karo sababta wuxuu leeyahay graphics iyo pop-up iyo wuxuu leeyahay script soo baxda ayuu leeyahay. wuxuuna u baahan yahay in lagu duubo Java software. ugu horeyn nouns waa magaca, waan naqaanaa. grammarka ayaan ka bilaabaynaa. haddii aan riixo waxaan ku aragnaa let's get started with. marka xilliga aan ku jirno barashada luqadda Ingiriiska waxaan isku dayi doonaa in a conversationka ama hadallada aanu ka dhigno luqadda Ingiriiska si ardayda ay u qabtaan. waa qaabka ugu fudud ee loo qabto pronunciationka, ku dhawaaqidda iyo ereyada sida loogu dhawaaqo. marka waxaanu doonaynaa more English imika inaan isticmaalo elementary-ga si loo qabto. marka magacyada wuxuu leeyahay we use nouns to talk about things, we use verbs to talk about actions, pronouns iyo adjectives, modals and all other parts of grammar are things we can use to make our English sound better. But verbs and nouns are things we must use. marka hadduu ku yirahdo verbs and nouns waa kuwa qasabka nagu ah inaan isticmaalno. So it is a good idea to use them properly. In this part we will look at the same things to remember about nouns. marka waxaan eegaynaa waxyaalaha mar walba la isticmaalo ee nounska ah oo aan doonayno in aan baranno. tusaale ahaan ordinary and proper nouns kuwa caadiga iyo kuwa kale magacyada. waxaan kaloo isticmaalaynaa plurals ayaan isticmaalaynaa. waxaan isticmaalaynaa possessives ayaan isticmaalaynaa. ugu horeyn waxaan sameynayaa casharka aad ayuu dheer yahay saa awgeeda waxaan isku dayay inaan soo gaabiyo oo muhiimaddu ay tahay ardayda inay fahmaan. wuxuu ku leeyahay ordinary nouns describe things which there are many of. wuxuu kuu sheegayaa ama description ku sameynayaa waxyaalaha qaarkood oo aad u fara badan. Look around and you can see many ordinary nouns like a computer. haddii agtaada aad eegtid iminka casharka aad la socotid waxaad arkaysaa waxyaalo badan ordinary ah maalin walba ka hor imaan sida computerka. But proper nouns describe things that are single or single types. laakiin kan saxa ah wuxuu kuu sheegayaa magaca ama nounka sida loogu dhawaaqo oo single-ka. tusaale ahaan for example there are many rivers, ordinary noun ayuu noqonaya, but only one river, Thames. Thames river kan wuxuu ku yaalaa magaalada London. waa marka magaca kan waa webigi waa river. waa proper noun ayuu noqonaya. Tara
waa magac proper noun gabar magaceeda ayuu noqonayaa is a girl kana wuxuu noqonayaa ordinary noun ayuu noqonayaa marka in English proper nouns have capital letters luqadda ingiriiska nounka asaxa ah properkan ah oo hubaalka ah waxaa la socota shaqal dheer waa capital letters ay ka bilowdaa even if they are not at the beginning of the sentence xitaa haddii aysan ka bilaabanin ku dhawaaqidda qoraalka qoridda ugu horeeya ereyga sentence ugu horeeya aysan ka bilaaban wuxuu leeyahay capital letters ayuu leeyahay for example ayaa lagu leeyahay tusaale ahaan my friend Hans is from Wiesbaden in Germany saaxiibkayga oo la yidhahda Hans ma ujeeda capital letter lagu soo daray ama shaqalka dheer is wuxuu ka yimid magaalada la yidhaahdo Wiesbaden oo ku taala waddanka Germany marka nounkii meel walba uu kaga jiro sentencega waxaa la geliyey shaqalkii dheer ama capital letter ayaan loo geliyey marka wuxuu ku leeyahay you can see the nationalities waddanka jinsiyada qofka German English etc proper nouns and the countries wadamadana Germany England marka German English Germany England the days of the week Monday Tuesday etc are proper nouns waa magacyo la hubaal ah oo proper ah oo sax ah and so are the months of the year iyo bilaha sanadka saas oo kale ayuu noqonayaa for example tusaale haddii lagu yidhaahdo an Italian went to Germany last Wednesday on an aeroplane an ay kan ku bilaabay xarafka Italian capital ayaa ku jirta went wuxuu aaday to Germany capital ayaa ku jirta last Wednesday kan waa noun proper noun soo awgeeda maalinta arbacada ah on an airplane isagoo raaxay diyaarad marka xasuusaya lagu leeyahay remember every language has a different idea of proper nouns luqad walba oo kala duwan waxay leedahay qaab iyadoo lagu isticmaalo magaca rasmiga ama jira if a word is a proper noun in your language luqadaada erey haddii uu yahay mid saxa oo magac sax ah it might not be English inuu sidaa noqonay laga yaabay mal also English uses more proper nouns than some other European language luqadda ingiriiska waxay isticmaashaa in ka badan magacyada rasmiga ah haddii loo eego luqadaha kale ee looga hadlo wadamada Europe pluralska marka pluralska are easy waa aad ayuu fuday you just put s ayuu ku leeyahay waxaad gadaal kaga daraysaa oon ku leeyahay pluralka marka jamaca uu noqdo luqadda Soomaaliga waa jamac s ayaad gadaal kaga daraysaa on the end of the word ereyga meesha ku dhamaaday one computer two computers s ayuu halkan ku gelinaya no problem yes sometimes there's a problem sorry marka for example tusaale ahaan haddii aan idhahdo Mr and Mrs Smith xusuuso dadka ingiriiska ah ama UK ku nool markay isguursadaan isla magacii ayay qaataan tusaale ahaan macalinka iyo xaaskiisa waxaa lagu yeerayaa Mr and Mrs Ismail ayaa loogu yeerayaa marka saas ayuu ku soconayaa dadka waddanka UK ku nool ama ingiriiska ah ama dadka ku nool waddankaas saas ayaa loogu yeeraa marka waxaana leeyahay Smiths the Smiths anagu waxaan noqonaynaa the Smiles haddii ay noqoto meaning taasoo macnaheed tahay people in the Smiths family wuxuu noqonayaa saas ayuu noqonaya Mr and Mrs Thompson are Thompsons labadan qof ee isqaba waxay noqonayaan Thompsons iyo Mr and Mrs Jones marka ma dhihi karno we cannot say طبعا Jonas s kuma dari karno so we say a Jonases with an es sababtoo ah s kaliya halkan ma dhigi karno ugu dambeysa meesha waa in aan ku darnaa sababtoo ah st ayaaba ugu dambeyso meesha ku jirta marka ma dhigi karno Jonases waa inaan aan ku darnaa Jonases aan idhahnaa we do this with a plural for all English words at the end with a s marka erey walba oo ingiriis ah oo aad doonaysid in aad plural ka dhigtid ama jamca ka dhigtid waa hadduu s ugu dambeeyo waa inaad ku dartaa es waa inaad ku dartaa tusaale ahaan one miss s ay ugu dambeysaa two misses ayaa lagu daray one kiss hal dhunkasho laba dhunkasho ayuu noqonaya marka es ayaa lagu daray one bus two buses marka hadduu ugu dambeeyo s es ka aad ku daraysaa notice ayuu ku leeyahay egg ss-ka labada ah buses we do that to show that pronunciation is bus and not bus marka sababta loo sameeyo waxay tahay in qaabka lagu dhawaaqo uu noqdo bus not bus marka pronunciation remember xaso ayuu ku leeyahay that plural the s is pronounced like a z
ama z wadanka maraykanka iyo kanada looga yiraahdo marka anagu waxaan baranaynaa tabcan haddaan xasuusiyo British English aynu baranaynaa marka azadka the plural is pronounced more like is taasoo kale tusaale ahaan waxaa laleeyahay for example bees shinidoo kale is pronounced like bees za ayaa loo marinaya ama bas marka la yidhahdo buses ayaa laleeyahay marka dhawaaqa saas ayuu noqonaya marka waxaa kaloo jira irregular plurals aan caadi ahayn oo regular ah some plural are irregular sometimes we keep the German or Latin ending marka qaarkood waxaanu isticmaalnaa German ama luqadii hore ee Latinka ahayd so we say one child but two children en bacterium waxaa la yidhahdaa a bacteria marka Latinka meeshu soo gala laga isticmaalayo a few word like a sheep arigoo kale and sometimes fish do not have a plural form two sheep many fish finally words that end in f but not ff or fe can have plural of vs taasoo ah ereyada ku dhammaada f ama fa ku dhammaada but not ff laba aan ahayn oo fe ku dhammaada wuxuu heli karaa plural oo ah ves tusaale ahaan for example knife waxaad leedahay knives ujeeda somaan vs knives meesha efta ka ahaa ama wife xaasas wives ayuu leeyahay hooves ayuu leeyahay waa xaywaan but roofka maaragtay dalcadda guriga dusha sare roofs ayuu noqonaya markaas es ma soo gelaya markaas a cliff meesha cliffka meel sare oo buur yaroo kale ah oo cliffka sida cliff of dover la yidhaahdo wadanka ingiriiska meesha laga soo galay xilliga laga yimaado wadanka faransiiska kale wuxuu noqonayaa cliffs ayuu noqonaya marka haddii pluralku uu ku dhammaanayo y ama ya ku dhammaanayo many words at the end of the y do not keep the y when it become plural ereyada qaarkood ay ku dhammaado y-ga ama ya-da ceshan maayo ama sii joogi maayo xilliga uu noqdo jamac uu noqdo ama plural this is especially true when there is no other vowel in the word or no vowel near the end if a longer word taasoo ku tusaysa haddii uusan ku jirin dhanka qoraalka ereyga vowel meesha hore iyo meesha ugu dambaysa tusaale ahaan one good try two good tries one good try ayuu noqday two good tries isku dayid ayay noqonaysaa good party two good parties maaragtay xaflado ama party wuxuu ahaadab iyo good party saas ayuu noqonaya but one day two days one holiday two holidays you'll find the same rule using when you're putting s on the verbs ending with a y you make the third person a present regular marka kan pluralku waan fahmi karnaa ereyada ugu dambeeya wuxuu noqonayaa s ayuu ka dhigaya laakiin qaarkood uu isbedelayaa sidaan kusoo aragnay halkan marka halkan ayaa sii raacaysa marka sababta lagaa doonayo inaad u aqrisid halkaas waxay tahay markuu halkan uu soo gaaro waxaad aadaysaa halkan marka waxaa muhiim ah waxaa laga yaabaa ardayda qaarkood in aysan arkin calaamadan halkan taala sababto ah java ayaa ka maqan computerkaaga marka ku laabo solagroups.com raadi cashar la yiraahdo java software oo waxaad isticmaashaa raadi wixii ku dhaafay java ayaad riixaysaa halkaas ayaad ka raacaysaa haddii kale kuu shaqayn maayo haddii uu kuu shaqeeyo marka waxaad samaynaysaa kan ayaad riixaysaa waxaa kuu soo baxaya elementary marka waa istijaabinaysaa 4 su'aalood ayaa ka taalla marka ugu horreyn waxaa lagu leeyahay put the mouse over Hannah and read what you have to do waxaa lagu leeyahay mouse-ka u dhawee Hannah gabadhan la yidhahdo halkan joogta iyo say kugu sheegto waxaa samaysid haddii halkan aan tago Hannah halkan aan ka tago wuxuu tusayaa mouse-ka qoraal ah halkan ayaad tegaysaa waad u dhawaanaysaa mouse-ka wuxuu ku tusayaa qoraal ah wixii aad samayn lahayd marka hadduu kusoo bixi waayo waxaa lagu sameeya refresh ayaa lagu sameeya halkan ayaa la tagaa ujeedaa wuxuu ku leeyahay hi guys this is what to do waxaan ayaa lagaa doonaya samaysid read the first sentence ugu horeyn sentencega halkan yaalla akhri ayaa lagu leeyahay click the orange box oo hoos yaalla write the letters that need capital letter xarfaha u baahan shaqalka dheer qor ayaa lagu leeyahay click fireball to check do next sentence marka waxay ku leedahay gabadhan ereygan akhri halkan yaalla sentence halkan yaalla akhri ayaa lagu leeyahay kaasoo ah my friend Tara will be 16 years old next Wednesday imisa ayaa ayaa lagu leeyahay maaragtay capital letter u baahan xarfaha u ka bilowda marka waan fahmi karnaa kuu yahay ugu horeyn halkan ayaa tegaysaa sidaas u jawaabsid waxaan ku tijaabinayaa waxaan leeyahay m iyo t iyo w ayaan u jeedaa
kaasoo ah my oo aan ku bilaabayo tara oo magaca noun ah iyo ugu dambaystii Wednesday oo ah iyadana noun oo ah maalinta marka markaasaan idhaahdo waxaan samaynayaa kan ayaan saan u riixayaa waa soo dhaqaaq kan kale yaali kani wuxuu leeyahay iminka William will take this new car to Germany next summer in August marka imis ayaa ku jirta marka William ka bilaab horta ugu horeyntii waxaan ka bilaabayaa William ayaan ka bilaabayaa waxa ku xiga ereygan kale oo halkan saan u yaala oo ah a Germany oo jiga sana maxaa kaloo ku xiga waxa ku xiga sanadka erayadan dhan gabi ahaan waan soo baranay August oo sana marka wuxuu noqonayaa WGA ayuu noqonayaa intan ayaa capital letter koraysa sababtoo waa nouns kan ayaan riixayaa waa ii socdaa iminka that's Queen Elizabeth live in Buckingham Palace boqoradda ingiriiska ku nooshahay guriga la yidhahdo Buckingham Palace oo ku yaala bartamaha magaalada London marka waxaan isticmaalayaan ujeeda isla markii Queen waa noun halkan ayaan isticmaalayaa Elizabethna waa noun oo kan sidan ah iyo waxaan kaloo isticmaalayaa Buckingham iyo Palace ayaan isticmaalayaa Buckingham Palace oo ah meeshaas ayaan isticmaalayaa sababtoo ah wuxuu leeyahay QEBB kan ayuu noqonayaa Queen Elizabeth Buckingham Palace ayuu noqonayaa meesha ay ku nooshahay kan ayaan riixayaa okay ugu dambeyn wuxuu leeyahay I live at 21 Hills Road waxaan deganahay wadada la yidhaahdo 21 Hills Road oo Cambridge magaalada ah in the east of England oo ah bariga waddanka ingiriiska marka maxaanu ku samayn karnaa ugu horeyntii waxaan ujeedaa hill oo ah kan waa noun waxa kaloo ku xiga waan aragnaa roadka halkan ah wadada ah HR ayuu noqonayaa Cambridge waa noun saas ayuu noqonayaa iyo ugu dambaystii wuxuu noqonayaa kan east of England ayuu noqonayaa England ayuu saan noqonayaa HRCE marka haddii kan asaan u samaysid kan labada ayaad aadaysa markii aad aadid wuxuu ku leeyahay don't get burned put your mouse over Tara gabadha halkan marka akhri waxaa lagaa doonayaa in ay noqdaan ereyadan plural inay noqdaan brother shelf child iyo party brother waa walaalka shelf waa meelaha alaabta la dhigo ee dukaamada iyo yeelan cunug iyo meelaha lagu caweysimo party lagu sameeyo marka muxuu noqonayaa ugu horeyn waxaan ka dhigayaa kan aan ka dhigo plural inaan ka dhigo waxaan leeyahay brothers waxaan ka bilaabayaa a capital letter waxaan leeyahay brothers walaalaha waan riixayaa waa iga soo dhaqaajiyey kanna shelf ayuu noqonayaa meesha dukaanka alaabta la dhigo marka saan u qorayaa dabcan waanu soo aragnay saan ayaan u qorayaa shelves ayuu noqonayaa sidan marka ma dhihi karo shelves s ma dhihi karo saan ayuu qormaya shelf kadibna waxaan arkayaa inaan halkan yaallo a child canug waxaan leeyahay marka caruur saan ayuu noqonayaa childs ma dhihi karo children ayaan saan u leeyahay iyo ugu dambaystii waxaan leeyahay a party haddii uu noqdo plural wuxuu noqonayaa parties ayuu saan u noqonayaa marka waxaan filayaa inaan si fiican u fahnay iyo haddii aan sii gudbo kan waxaa laga doonayaa ardayg inuu sameeyo waxa lagu leeyahay put your mouse over Tara way kuu sheegaysa wax la sameynayo wuxuu ku leeyahay the John's new car is very expensive marka wuxuu ku siinayaa kan waa ben iyo run true and false marka iyadaa kuu sheegaysa gabadha kuu sheegaysa markay agteeda saan agteeda kuu sheegaysa marka halkan ayaa la tagaa hadduusan kusoo bixin agteeda ayaa saan loogu dhawaadaa waa la soo saara marka wuxuu ku leeyahay masaxba Jones's new car is very expensive gaariga reer Jones ay wataan waa qaali marka masaxba mise waa marka waxaan leeyahay waa true gaarigooda waa expensive baraneego markan way soo dhaaf marka he goes to Manchester railway station every Wednesday morning maalin walba oo arbaca ah waa berigii hore wuxuu aadaa tareemada meesha laga raaco ee magaalada Manchester waa erey saxsan ayaan leeyahay marka Susan's appointment with the dentist is at 10 o'clock tomorrow marka kan waa ujeednaa straight away in uu false uu yahay iyo ugu dambeyn wuxuu leeyahay there are only 2 days until Christmas and we still haven't got mother a present completely waa qalad ku dhawaaqidda iyo siduu yahay sentence kan ayaan eegayaa aad u salaamsan ayuu ku dhammaaday marka waxaanu sameynay hadda grammarka dhankan haddii loo eego lesson 1ka halkan ayuu ka bilaabanaya kii 2ga 3ga iyo ugu dambeyntii 4ka oo kan ahaa ayuu saan u noqonaya marka waxaa la doonayaa in aad isjaabsayaa la doonayaa iminka waxaa ku xiga functions haddii saanaan u furo waad akhrinaysaa halkan ayaa soo raacaysa hi it's nice to meet you
is arag wanaagsan marka introductionka ayaad akhrinaysaa sababtoo ah waxaa la doonayaa kan in adiga aad samaysid markii aad akhrisid oo aad istiraadid iminka waxaad diyaar u tahay inaad samaysid waxaad raacaysaa meesha ugu hooseyso halkan ah oo Java u baahan markiisana aan u riixo waxaa halkan fadhiya party meel lagu caweynayo but do you know what to say and how to greet people at parties ma taqaanaa ama ma samayn kartaa qaabka loo salaamo dadka aad ku kulantaan xafladaha oo kale partiga click on different people to see their replies dadka kala duwan riix bal waxay ku jawaabaan aragno Jane waxay tiri where are you from halkee ka timid haddii dusheeda aan riixo waxay leedahay I'm from London ayay tiri halkan waxaa jooga Tom have you met my girlfriend Barbara gabadhan isjecelnahay Barbara la yiraahdo Tom ninkan la hadlay meesha aragteen haddii kan aan riixo wuxuu leeyahay how do you do tabcan waxaa la doonayaa halkan inuu ka soo bilaado hi nice to meet you Tom have you met my girlfriend markuusaan yidhi hi nice to meet you Tom barasho wanaagsan Tom ninkan iyo gabadhan ayaa la socda markaasuu yidhi how do you do marka ugu horeysa waa muhiim qof luqadda ingiriiska ku hadla hadduu ka hor yimaado oo lagu baro marka ugu horeysa waa the first time ever haddii lagu baro waxaa leedahay marka lagu yidhaahdo hi this is qofkan waa sidaan waxaa leedahay how do you do iska waran oo kale ayaa leedahay laakiin waa markii ugu horeysa aan is aragno gabadhan waxay leedahay hi you must be Mark waxaan filayaa inaad tahay Mark muxuu ugu jawaabayaa yes that's right I'm Mark macnaheed tahay waa runtaa waxaan ahay Mark ayaan ahay iminka ayaa la doonaya marka next inaan idhaahno waxaa halkan fadhiya lesson 2ga waa simple conversation waa hadallada conversationka dadka dhex mara isla hadlayaan waa ereyada ugu muhiimsan ee luqadda ingiriiskana laga barto would you like to meet Sally and Peter ma jeceshahay inaad qaabashid ama isbarataan gabadha la yidhahdo Sally iyo inanka la yidhahdo Peter marka there are two a simple conversation among people of the party waa dadka xafladda ka soo qayb galay iyo hasaawahooda ayaad marka bal isku eg ayaa lagu leeyahay waxa lagu casuumay you have been invited to a party by a friend waxa lagu casuumay xaflad asxaabta mid ka mid ah you will meet some people on the party dad ka soo qayb galay ayaad la kulmaysaa will you like to talk to them ma jecesha inaad la hadashid to start choose si aad u bilowdid choose who you want to talk to and click their picture marka qofkii aad doonaysaa ula hadashid bal sawirkooda riix ayaa lagu leeyahay waxa le hi Maria would you like to talk to me haddii aan riixo halkan ay ka bilaabanaysaa hi my name is Sally what's your name marka optionka halkan ayaa lagaa siiyey markaas waxay ku jawaabaysaa tabcan ma dhihi karto I'm not sure I have not seen much ma dhihi karto waa qalad waa fahmaysaa waxay leedahay my name is Maria gabadhan ayaa hadlaysa my name is Maria marka haddii gabadhan aan dusheeda aan tago waxuu leedahay magacaa hi my name is Sally adigu magacayga waa kaas marka haddii aan u gudbo kan kale iminka waxaa soo baxaya conversation markaan idin leeyahay saana idinku soo baxaya marka kan la-aantii wax shaqeynaa beerata ma jiro mujeeda locationka solo groups ka imaanaya ran ayaad leedahay iminka ayuu bilaabanaya conversationkii Maria conversationkeeda hadda ayuu bilaabanaya marka si conversationka ama wada hadalka xafladda uu wada socdo waa in ereyga asaxda marka tusaale ahaan Maria waxay bilaabaysaa inay kula hadasho Maria will start the conversation read her questions carefully su-aashay kusoo weydiiso si fiican u akhri then choose the best answer for Tom for the three list below marka xul ayaa lagu leeyahay su-aalaha is leedahay jawaab su-aasha lagu soo weydiiyey jawaabteeda u qalantaa hoos ka riix ayaa lagu leeyahay click an answer then click on Maria's name underneath kadibna Maria magaceeda hoos riix the picture oo halkan ah haddii Maria if Maria decides she does not want to talk to you anymore haddii ay go-aan ku gaarto inaysan doonin inay marka kula hadasho you have said something wrong si qalad ayaad u jawaabtay if you answer correctly haddii si saxa u jawaabtid she will offer you a drink and have a nice chat kadibna waxaa idin dhexmaraya hadal chatka waxa la yidhahda luqadda ingiriiska wada hadalka hasaawaha dadka ay ku wada hadlaan waxay leedahay hi Tom iminka ma dhihi kartid good night qofku yidhi hi Tom tabcan ma dhihi kartid how do you do maadaama ma dhihi kartid waa erey culuskan marka waxaa leedahay hi how are you kadibna magaceeda ayaa saa u riixaysaa I'm fine ayay tiri aad baan u fiicanahay are you enjoying the party ka waran xafladdan ma ku raaxaysanaysa ma xaflad wanaagsan ba ayay leedahay markaasaa wuxuu leeyahay yes it's fun ma xuma waan ku raaxaysanaya marka Maria ayaa hadlaysa iminka would you like to dance ma doonaysaa in qoobka cayaar aan isla sameyno isla cayaarno
markaas wuxuu leeyahay yes I do waan ogolahay not now thanks I'm a bit tired maya hadda ma samayn karo waa mahadsan tahay laakiin xogaya waa yara daalna iyo no I wouldn't tan lama dhihi karo tabcan to a lady kan ayaan riixaynaa not now thanks I'm tired haddii aan ku noqdo weli sheekadii way socotaa oh okay maybe later then okay dhib male mar dambe ayaanu samayn doonaa markaas yes that would be nice ayuu leeyahay kan kadibna haddii aan ku laabto okay ay leedahay iminka can I get you drink ma doonaysaa cabitaan inaan kuu keeno marka sheekadii saas ayay ku soconaysaa maria iyo kan iyo inanka saar ay wada soconaa sheekada saas ku soconaysaa marka haddii halkan aad ka soo bilaabaysaa kan ayaad usoo gudbaysaa kan ayaad usoo gudbaysaa kabacdi waxaad imaanaysaa kan ayaad imaanaysaa kadibna kan ayaad imaanaysaa sheekada saas ayay ku soconaysaa markuu saan dhaafo let's go to halkan waxaad aadaysaa dhankii iyo vocabulary ayaad aadaysaa marka one reason to learn English is that you can meet new people talk to them sababaha ugu weyn ee luqadda ingiriiska loo barto waa adigoo dad kale la kulma isla markaana la hadla oo idin dhexmara hadalla iyo waxyaalaha if you want to meet people outside your country haddii aad doonaysid dad waddankaada banaankiisa inaad qaabashid ama aad la kulantid then it's a good idea to learn English today from all over the world use English talk with the people who do not know their language it doesn't matter if you're Japanese Bolivian or a Nigerian if people cannot speak your language next question is do you speak English markan aaday muhiim u tahay waa luqad international oo caalami ah adduunka looga hadlo qof walbana uu ku hadlo meel alla meesha tagtid looga hadlo marka waxaa la doonayaa mar walba in aad qaabkaas u raacid marka halkan soo eeg sii soco next day halkii aad soo raacaysa markii aad soo gaartid halkaas ayaa kasii wadaysaa iminka waxaan tegayaa vocabulary ayaan tegayaa markii aan tago halkan waa muhiim waa in Java uu ku dubnaadaa computerkaaga fadlan ku laabo solo groups ka raadi Java lesson ah oo casharka qaabka loogu duubo ah YouTube-na ku jira shabakadana ku jira haddii kale arki maysid waxaan halkan yaala wuxuu ku leeyahay when the applet has loaded waa Java applet try guess bal isku day inaad eegto which words you use to describe the country and these people ereyga aad oran lahayd waddanka iyo dadkiisa then put your mouse marka ku fikir country maxaad ugu yiri adoon tegin halkan boxka adoon gelin waddanka ingiriiska country the country waddanka the person shakhsiga iyo adjective maxaa ugu yiri leeyahay tusaale aan siinaya haddii aan tago halkan England waa waddanka the country is England person waxaa leedahay Englishman ama English woman ama English person wuxuu ahaadaba hadda iyo markuu adjective yahay wuxuu noqonayaa English ayuu noqonayaa kadibna halkan waxaa yaala Ireland waddanka la yidhaahdo Irishman oo Irish woman oo Irish person iyo Irish markuu adjective uu yahay kan wuxuu noqonayaa Scotland Scott iyo Scottish markuu adjective yahay Wales Welshman iyo Welsh marka Welsh iyo kan suu kala duwan yahay bal eeg kadibna waxaan tegayaa lesson 2 ayaan tegayaa look at these flags eeg calamadan and try to get which you would describe these European countries and their people isku day inaad sheegtid qalbigaaga intaadan riixin godka wadamadan Yurubka ah iyo dadkooda wax lagu magacaabo kadibna mouse-ka dushiisa tag bal eeg country waa Italy person Italian adjective markuu yahay Italian waay markan muxuu noqonayaa Germany kan wuxuu noqonayaa German ayuu noqonayaa person adjective markuu yahay waa German isla mid kan wuxuu noqonayaa France a Frenchman iyo French oo sidaan ah ugu dambeyn wuxuu noqonayaa kan aad u muhiim u eeg Spain Spaniard ayaa la yidhahdaa Spaniard ayaa la yidhahdaa Spanishka kadib kan wuxuu noqonayaa Spanish uu noqonayaa markuu adjective uu yahay iyo ugu dambeyntii marka halkan uu tago iminka waxa lagu leeyahay isla sidii eeg calaamadan halkan yaala wadamadooda iyo dadka iyo marka adjective iyo sida loogu country United Kingdom boqortooyada ingiriiska the person Britain ayaa Britain ayaa qofka oo ka yimaaday wadanka United Kingdom adjective markuu yahay waa British a Greece marka ekan si isu bedelayo a Greek ayuu leeyahay marka kadibna Greek ayuu leeyahay kana Greece kan wuxuu leeyahay Poland Paul kana Polish Very Paul waa person who's this person this is a Paul ayaa lagu leeyahay waa wadanka Poland ayuu ka yimid iyo ugu dambeynta halkan waxaa yaala Sweden Swede ayuu noqonayaa
qofka Sweden ka yimaaday iyo Swedish oo sidana marka sidan ayaa loogu kala dhawaaqaa the country the person iyo the adjective sidan ayaa loogu dhawaaqaa ugu dambeyntii kan ugu muhiimsan waa dialogue wada hadalka marka luqadda Ingiriiska waxyaalaha ugu fudud ee lagu barto waa dialogue wada hadalka ayaa lagu bartaa haddii aad akhrisid journalada radio waa dhageysatid especially qaasatan radioska wadanka UK oo ah BBC radios waa meelaha ugu fudud ee lagu barto the international conference dialogue ayaa ka jira halkan ayaan riixayaa Professor Briggs ayaa hadlaya marka waxaan doonayaa in aan dialogue halkan soo dhigo sababtoo ah ma doonayo inuu iga hor bilowdo sababtoo ah laba codka la isku kordoobi karo marka waxaa hadlaya Professor Briggs dadka ayuu introduction u sameynaya sida ay wada hadlayaan iyo dhammaanba halkan ayuu ku jira marka ma doonayo cod ayaa socda codkii oo socda cod kale ma doonayo in uu soo dhexgalo saa ku aragtaan codkii xataa uu duubaya marka waxaa lagaa doonayaa dialogue inaad tagtid aad akhrisid ayaa lagaa doonayaa markay aad akhrisid aad dhageysatid ayaa lagaa doonayaa aad repeat ku samaysid ama aad ku celisid wixii aad ka maqashay halkan ayaa lagaa doonayaa haddii aan yidhahdo let's go meeting peoplena isna waa sidaas oo kale Jack has met Christina say wada hadlayaan dialogue oo hadalkooda dhegeyso Christina waxay leedahay hello I'm Jack are you Christina yes I am nice to meet you Jack of Italy Christina no I'm German I live in Munich Jack ayuu wuxuu leeyahay I went to Munich last week asbuuci horaan tegey marka waxaan ku noqonayaa halkan ayaan ku noqonayaa si codka oo maaragtay aan iga soo dhexgelin kadibna waxaan leeyahay halkan ayaan sii aadayaa meeting people part 2 oo sidan ah kan ayaad riixaysaa iminka saanay u soconaysaa waa sii soconaysaa marka ilaa aan ka gaartid meesha ugu dambaysa marka kan ugu dambeeya dialogue waxaa lagaa doonayaa adiga in aad dhexda ka gashid ayaa lagaa doonaya aad dhageysatid marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay pronunciationka iyo conversationka ku dhawaaqida iyo wada hadalka in adiga qalbiga aad gelisid oo aad tiraahdid qaabkan ayaa ereyga loogu dhawaaqaa oo haddii ay kugu dhacdo adigoo international airport jooga ama international conference jooga waxa dhacaya wada hadalkan ayaa ka hor imaanaya marka waad soo qabanaysaa ereygii waxaad ku leedahay hi what's your name magaca my name is ABC qofka marka jawaabtii isaga ayay ka imaanaysaa marka wuxuu ku leeyahay where you from markaas imaanaysa markuu leeyahay I'm from Sweden or I'm from UK I'm from Somalia oo wadankaadi markaas ka imaatay marka dialogue saas ayuu ku bilowdaa teeda kale xilliga aad baranayso luqadda Ingiriiska marnabaha ka baqin in aad mistake aad samaysid ama error ama qalad aad samaysid sababtoo ah waxa ugu wanaagsan ee lagu barto luqadda Ingiriiska waa qalad adoo sameeya marka dambe waad iskaranaysaa waxaad arkaysaa adigoo maaragtay si fiican ugu hadlay casharada soo socda tabcan waxaan sameynaa conversation oo hadal ah oo sida loogu dhawaaqo ereygaasi oo qofku u raaco ayaanu sameynaynaa marka waxaad samaynaysaa kan adigu gooni ku yahay dialogan kan adigu ayaad dhegeyso kadibna repeat ku samee saas u raac waxaa muhiima mar walba in aad ku duubtid halkan softwareka Java idin sheegay halkan ayaa kasoo bilaabaysa isku day ku laabo isagoo full version wuxuu ku jiraa shabakada Solar Groups ayuu ku jiraa waxaan filayaa casharkan xiisaha leh ee aan ku baranay elementary grammar functions vocabulary iyo dialogue halkan ayaan kaga baxaynaa wixii macluumaad mar walba la xiriira ICT iyo English waxaad la soo xiriiri kartaan info@solargroups.com anigoo ah Macallin Cabdinaasir intaa wada kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu